soo dhawow waxaan ku jirnaa bisha barakeysan ee Ramadaan waxay noo maraysaa maanta 16 waxaan nooga harsan buu 13 ilaa 14 dhibaato waxa qabo ma soome oo bishan aan waliba soomin laakiin ilaa hadda fursad ayuu heystaa 14 maalin harsan ama 13 maalin maanta wixii ka bilowdo waad bilaabi kartaa okay ilaahay cimriga ku siiyay waa ku waafajiye bishan barakeysan caafimaad ku siiyay waxaad u soomi weysayna waa qalad dhinacaaga okay dada xanuun ku ersheegto laakiin ramadaanka asaab caafimaad ah xanuun walba aqabtid dada soontid ilaa inuu kugu caafiya laga yaabaa okay mawduuciga aan u gudbi sheekadaas uma soconine bishan ramadaan waxa ku jiro zako loo yaqaano zakatul fitr oo laga rabo qof walbo muslim ah hayraado ama haweenaado oo awooda oo maalintaas gurigiisa waxa laga cunaa ka baxsan inuu sadaqeeyo sadaqadaas waxa la siiyaa dadka masaakiinta waxa loogu talagalay calaashan ujeedada loo sameeyay waxay ahayd maalintaas ciida inaan la arkin qof muslim oo tuugsanay okay qof walbo muslim ah inuu ciido gurigiisa dabka laga shido anaga markaan joogno marka qurba مثلا markii hore waxaan bixin jirnay 10 euro laakiin hadda waxa laga dhigay sanadkii hore 15 euro maadaama maciishada kor u kacday laakiin hal cilad ayaa ka jirto in leela arka in kala ma aqaano cilad ka jirto waxay tahay zakatul fitriga sida fiican waxa la sheegay in la bixiyo 10 ka dambe wixii ka dambeeyo okay ilaa iyo maalinta ciida salaada ciida inta la dukan laakiin anaga waxaan ka bixinaa masaajidahan dad qaar waxa arkaysa maalinta ciida bixinay ayagoo salaada markay u soo baxaan intaysan salaada dukanin ay lacagta wareejinayaan ama koonta ku diraan ama kaasha ku bixiyaan ay bixiyaan macnaheedu waxay tahay marka qofkan lacagta loo dhiibay goormuu siinaa way dadka muslimiinta ilaan salaada ciida kadib uu siinaa maano alashan hay'ad iyo waxaas ku xiran yihiin marka aniga hal fikradan qaba marka aniga muddo hadda 2 sano ku dhow maan ku bixin masaajidka waxaan sameeyaa lacagta markaas inta qofood aniga leega rabo oo aniga markaas mas'uul aan ka ahay lacagtooda markaan isku dardaro okay waxaan sameeyaa marka waxaan u diraa wadanka okay مثلا hadii 10 madi ay yihiin ama 10 madax macnaheedu waxay tahay lacagta inta min 15 hadii la dhaho waa 75 euro 75 euro wadanka markii loo diro wax badan ay goynaysaa okay 10 qofood ay wax siinaysaa marka fikradda aniga aan qaw waxay tahay lacagta oo zakada ina wadanka u dirtiin oo aad siisiin dadka muslimiinta oo Soomaaliga ah masaakiinta meesha jooga okay because meeshan qof zakala siiya malahan masaajidaha way qaadaan waxay geeyaan wadamada baahida ka jirto marka adiga ka Soomaali ahaan maxaa ku diiday lacagtaada ina u dirtid dadka Soomaaliga oo muslimiinta ah because waxa laga yaabaa hooyo inay wadanka joogto ama aaba inuu joogo ama walaalo inay joogto ehel qaraaw inay ku joogaan lacagta markaas adiga iyo ilmahaaga laga rabo marka isku dartid okay ina wadanka u dirtid oo la siiyo dadka masaakiinta ama dadka zakada ay ku waajibtay okay in la siiyo waayo hadii masaajidaha ka bixisid masaajidaha waxay bixiyaan ciida kadib taasna waxa way macnaheeda zakadii fitriga maka gudin oo maka dhicin waayo zakada waxa loogu talgalay qabla al-ciid in la bixiyo qabla salaat al-ciid inay ugu dambeyn inay baxdo marka aniga fikradaasan qaba oo qof walbo dadka adiga mas'uulka ka tahay lacagtooda inay isku dirtid oo wadankii aad u dirtid qof joogo kadibna bariis in lagu soo gado oo la siiyo dadka markaasi zakada ay ku waajibtay in la siiyo okay fikradaas ayaan qaba adiga say kula tahay